كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي بقولي كوبي اللواتناد قيبتي اللباد لسيد أوبتك يعشر ذا كجو رميني كيلالنت أوبتك حمانتا waxaynu bilownay qaybta marka siyaabaha ubadka waa maxay aynu u barayno markay waa maxay deeqaangaar ku soo dhawaadaan siyaabaha marka waa maxay iyo muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in ubadka la baro inay waa maxay habka deebiyaha marka waa maxay janaabada marka waa maxay iskaga rafcinayaan marka ama iskaga maydhayaan ayaynu waa maxay inta hordhaca ka soo qaadanay. haddaba waalid waxa marka ku siin doonaa waa maxay ama aynu qaadan doonaa axkaamta ugu muhiimsan marka waa maxay sharciga ee ku tacalluqda ama ku xidhan habka waa maxay qofku iskaga rafcinaya waa maxay biyaha marka waa maxay waxaan ka warrami doonaa caawa laba qodob baynu caawa eegi doonaa insha allahu tacaala. horta in ubadka waa maxay loo sheego waxaan ka soo baxaya waxay yihiin iyo marka waa maxay noocyada ay noqonayaan ayaynu ka warramaynaa. ka koowaad waxaa la yidhaahdaa معناه نزول المني يسبب الحدث الأكبر. قدر كواد وحوي ده مني ده أيا وحي مركز سبب يساوام حي قف وحكو كينيسا حدث كوين معناه قف كوينو ما يدو حكيني بيها سا مركز كينية وحنا كينيسا قف محينو مركز ما يدنا وحي مركز كينية من ده قف كينية سياها مركز أي من يسو ده إنه قف كوام حي ده قف كوام حينو مركز رياضة مركز يسوق رياضة كتيرة إلين wax marka qofkaas biyahaas ay ka yimaadaan marka. haddaba waxa la yiraahdaa ama de lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado hadii markuu qofku soo kaco de maradiisi waa maxay ilmihi tsaraama soo kaco kale uu ku arko bala marka balala ama hadii waa maxay de biyaha uu ku arko laakiin aanu xasuusan macnaha qofkaas inuu waa maxay de wax ka yimaadeen iyo waa maxay ka iman waxa waajib ku ah la korkiisa waa maxay inuu maydho. arintaas oo faahfaahsan waxa marka inoo sheegaya xadiiska marka Aisha marka nabiga ka waranayso ee marka ay shantuba marka ay soo saareen nisaa mooyaane waxa marka ay leedahay nabiga waxa la weydiiyay ani rajuli yajidu albalala waxa la weydiiyay macnaha ninka hadii marka waa maxay qofka de rag iyo laba hadba ku xadiiska xaq inta ku arki doona qeybta dumarka laakiin ninku hadaba markuu soo kaco de maradiisa marka uu ku arko balala macnaha ay yajidu almaniya muballilan thawbah macnaha haduu arko marka de maradiisi waa maxay marka qoyan haduu marka arko wala yadhkur ihtilaaman waxay ku tiri marka oo aanu xasuusan macnaha de biyaha waxna qoyaankan macnaha mariyo kaaga yim aanu xasuusan marka nabigu wuxuu yiraahdaa maxay yaqsil uu maydhanaya faqaala wuxuu nabigu yaqsil qofkaas uu maydhanaya. haddana waxa lagu yiri marka waa aan rajuli yara annahu qad ihtalama qof baa wuxuu arkay marka waa maxay inuu marka de riyooday ana wuxuu leeyahay qofkan wuxuu macnaha wuxuu waa maxay xasuustay inuu riyooday laakiin waa maxay walam yajid albal laakiin waxa mariyihiisi wax maniyo saaran ama wax biyaam wax qoyaan maxay wax astaamaha maxay de manida kuma arag marka faqaal nabigu wuxuu yiri la ghasal alayhi macnaha qofkaasi waa maxay maydhan maayo marka Sulaym baa waxa nabiga hadana weydiisay Anas bin Malik oo yidii ahayd ayaa waxa ku tiri almar'atu tara dhalika alayha ghusl waxa ku tiri dumarkooda nabiga Ilaahay intaas oo kale way arkaan macnaha sida waa maxay rag de marna waa maxay marada qoyaanka ugu arkayaan marna waa maxay aan ugu arkayn ama xasuustaan in de riyo maxay kaga timiyay in kale waxa tiri dumarku intaas oo kale way ku dhacdaay iyagana waajib korkooda ma saaran yahay macnaha inay maydhaan. qaala nacam biyir nabigu ha iyaga korkooda waxa saaran macnaha hadii de waa maxay hadii waa maxay marka ay qoyaanka mariyahooda ku arkaan inay marka maydhaan laakiin hadii waa maxay aan qoyaan aan ku adag laakiin ay ka fakarayaan macnaha inay riyoodeen oo kale waxa lagu malaha maydhasho marka. markaas nabigu wuxuu sii raaciyay marka qaala nacam wuxuu yiri inama an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal marka nabigu halka waa maxay wuxuu ku yiri
macnaha waa maxay dee dumarku xagga axkaamta sharciga ah waxay markaa waa maxay kala mid yihiin oo marka ay la wadaagaan markay dee biyaha manida ay noqoto waxay kala mid yihiin dee raggay markaa waa maxay kala mid yihiin marka oo sida raggu waa maxay dee u riyoonayaan nuzuulul mani biyahaas waa maxay uga imanayaan ayaa markaa iyagana uga imanaysaa marka nebigu shaqaa'iqu rijaal buu sheegay macnaha waa maxay qaab alfaadoos waa macnaha kaleer oo muuqata waadixa ugumuu sheegin markaa waxay ku tusinaysaa markaa xishoodkii markaa nebiga laakiin waa maxay dee umu saleyma markaa macnaha maqsuudkii ujeedada maxay way fahantay wuxuu nebiga markaa maxay u ka waday inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal marka taasi waa maxay waa ta koobaad ee ubadka waa maxay in saa waa maxay loo fahansiiyo oo macnaha waa maxay dee astaanta koobaad waa maxay ay tahay ay ka maydhanayaan macnaha manida markaa haddaba manida kala duwan markaa qaybaha qofka waa maxay uga soo baxayso xadiiska waxa ku xusan hadda waa maxay in markaa uu riyoodo un qofku waa maxay buu xadiiskaas sheegaya waxa la yiraahdaa marka haddaba si kastoo maxay qofku dee biyaha manida maxay uga yimaadaan ama gabadhii ama dee inankii waa maxay biyaha haddii kasoo boodaan ama shahwaanaha uga yimaadaan ama ha iska keeno ama si kale macnaha waa maxay wax iyadana waajib ku ah sidoo kale qusulkii marka inuu maydhanayo oo macnaha inaanu ilmihii aan la oran oo keliya markaad riyootidin biyo hadday kaa yimaadaan maydho in la yidhahdo maxay si kastay kaaga yimaadaanba biyahaasi waad maydhanaysaa markaa iyadana taa waxay noo cadaynaya markaa waa maxay xadiiska markaa ibnu maaji iyo tirmidi ay warinayaan cali bin abdillah laga warinayo marna waa maxay uu warinaya imaam muslim ayaa markaa wuxuu leeyahay cali bin abi taalib xadiiska markaa wuxuu leeyahay kuntum rajulan madaa'a macnaha waxaan ahaa buu yihi markaa waa maxay nin markaa madi badan marka alfaada qaar sida dee laftiga uu warinaya waa maxay riwaayaha muslim imaam muslim oo kale waxa uu leeyahay wa kuntu astaxyi an as'ala nabiy sallallahu alayhi wasallam macnaha nebigan inaan dee weydiiyo waan ka xishoodayo dee maadaama gabadhiisi marka aan qabo waan ka xishooday marka wuxuu yidhi miqdaad bin aswad baan u diray waxaan ku idhi ba arrintaas soo weydiiyey markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka nebigu waxau yidhi waa maxay yaqsilu dakarahu wayatawada haddii madida marka inagu eegi doona hadduu markaa isku arko macnaha waa maxay uu ka maydhanayaa marka tan iyadu waxay aada u khusaysaa dhinaca inamada oo kale ama ragga oo kale waxaa la yihahdaa markuu soo kaco macnaha biyaha waa maxay uu maradiisa ku arkayaa saddex xaaladood bay noqonayaan marka dee waa maxay inay manidii markaa noqoto oo manidi waa maxay iyagu waa dee waa maxay waa shahwada ama waa biyaha marka waa maxay iyagu dee daahirka ah waa biyaha waa maxay dee ilaahay inaga abuuray inaga khuliqa min maa-in daafiq marka yakhruju min bayni sulbi wataraa'ib iyagu markaa waa maxay waa daahir markaa waxaana qofka looga baahan yahay inuu markaa waa maxay qofka waa maxay dee ka maydho hadba siyaabaha uga yimaadaan ka labaad waxa weeye waa maxay waa madyi marka waa kaa cali bin abdillah uu sheegayo uu leeyahay kuntu madaa'an baan ahay marka madyiga iyadana waxaa la markaa waa najaaso markaa mukhafafa ah baa la markaa waa nooc iyadana markaa najaasada bay markaa noqonaysaayo qofka isagana waxay markaa ka yimaadaan markuu dee qofku ciyaaro oo kale ama waa maxay dee eegmo badan sameeyo oo kale ama dee qofku xaaskiisi waa maxay la ciyaarayo oo kale iyaduna maxay markaa iyadu waxaa markaa ku dhacaysaa maradana waa laga daahirinayaa macnaha qofku dee jirkiisana waxuu ka daahirinayaa qaabku ka daahirinaya waxaa weeye inuu biyaha ku shubo markaa maadaama intaasi markaa fuudo ay iska tahay uuna markaa dhaqo dee waa maxay qofku intaa waa maxay intaa dakarka markaa ka soo baxday markaa sidoo kale waa maxay dee qofku waana ka weese qaadanayaa markaa maadaama najaaso tahay qofka waxuu ka weese qaadanayaa markaa taasna waxay waa madyi baa lahaa waa miim iyo daal iyo ya tii hore maxay ahayd waa mani ta koowaad waa mani waa biyaha caadiga daahirka kuladan maxay waa maxay waa marka waa madyi kuwa hadda aynu sheegayno qofku waa najaasada ka weese qaadanaya meesha ka dhacdayna uu iska daahirinaya markaa kuwa saddexaad iyagu wadyi baa la yiraahdaa wadyigu waa iyaguna waa najaaso weeye waxayna ka soo baxaan baa la qofka kaadida kadib waxyaabo badan baa keeni kara dee qofku haddii waa maxay saahan hadduu xanuuno qofku hadduu leeyahay oo kale hadduu qofku waxyaabo culus qaaday oo kale waxyaabahaas maxay iyagu inta badan oo maxay keenaya marka iyagu waxa la yiraahdaa waxay qaadanayaan xukunkii waa maxay kaadida oo kale qofku saa kaadida iskaga dhaqay ayuu waa maxay iyadana waa maxay iskaga daahirinaya marka intaas waxay u badan tahay dhinaca dee raggay markaa u badan tahay waa maxay oo iyaga ma maxay saddexdaa nooc baa maxay markaa loo kala qaadaya marka haddaba waxaynu kusoo koobaynaa dhinaca manida ama biyaha waa maxay haddii qofku waxaa la markaa
qofkii markaa dee waxaa laga yaabaa 3 biyo maxay kalarka qofku inuu isku qaldo ama kala garan waayo oo kale ama maniba ama madiiba muxuu samaynayaa marka 3 qowl baa ku jira marka koow waxa leeyahay ana qofku hadii dee ilmihii marka sahan marka loo sheego wix la kala fahansiiyo hadii marka uu rumaysto in waxaan mani tahay oo salaanda sifooyinka ay leedahay wixii dhan buu arkay marka taa mani han buu dhaqmayaan ka meeranaya talabaad waxa marka la yiraahdo hadii marka uu aanu dee marka uu yaqiinsado marka inaanay marka waxaan aanay mani ahayn buu yaqiinsado iyadana waa maxay marka dee wax looga baahan yahay marka waa maxay intii dhaqoon baa looga baahan yahay marka mariyihii meesha ka soo gaadhay oo kale ama waa maxay dee xubintii marka taranka oo kale ayaa marka iyadana wuxuu taataana marka wuxuu la dhaqmayay marka madi tahay uu la dhaqmaya hadii marka uu kala garan waayo hadaba macna nooca ay tahay iyadana waxa loo kala qaadaya marka 3 qaybood waxa leeyahay marka macnaha hadii dee xukunku waa maxay sida uu noqdo waxa la eegayaa marka wuxuu eegayaa marka qofku marka soo inuu dee sifooyinkii waxa dhan kala garanaya marka saa u soo kacoba wuxuu eegayaa marka hadii waa maxay meesha marka qoyan tahay oo sarhaan dee riyana waa maxay uu ku arkay oo kale ama riyadii wax ku arkay oo kale marka mani ahaanba uu noqonay hadii laakiin markuu dasi seexanayo oo kale qofku waa maxay waxyaabo dee ka fakarayay waa maxay maskaxdiisa qofku soo dhacayo oo kale taasina maxay muxuu la xisaabtamaya madiyada buu la xisaabtamaya biyo qofku iska dhaqay oo kale hadii marka labadaba aanay ahayn dee qofku qof marka daahira marka hadii marka labada hore noqdo qofku aad u kala saari waayo waxa la wada qoslo ahwad inuu iska meedha fiican marka hurdada ka soo kaco marka inahaasina waa maxay waxay ku eegayaan maxay biyaha inta badan la isku qaldo oo marka inta badan la yadu waa maxay saani waa maxay u kala ogaadanaya muhiima marka qaybaha waa maxay waynu sii wadi doonaa qaybtii waxay noo harsan marka dumarka xaydka nifaas kuwaas oo dhan bay noo harsan iyo qaybaha maxay qaabka looga dahaaro qaadanayo iyo waxay noo harsan qofku waxyaabo iska ilaalinaya marka 10 dambe ku eegi doonaa insha Allah ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam